sirdoonkii Chinese-ka ee noqday tuuga ugu weyn ee dhaca baabuurta. Min Changyan waxa uu ahaa xubin ka tirsan sirdoonka China oo isaga shameeyadii soo galay caasimadda Mareykanka ee New York isagoo ka aasaasay kooxdii ugu weyneed ee soo martay taariikhda Mareykanka oo dhan. Kooxdani waxay ku takhasustay sida loo dhaco baabuurta qaaliga ah ee hantiilayaasha. Baabuurta la hado mararka qaar waa la heli karaa gaariga oo dhan. Inta badanna waxa la helaa qaybo kamid ah oo ay tuugadu iibiyeen ama ay iska tuureen. Laakiin Yan iyo kooxdiisu waxay xadeen kumanaan gaari oo aan waxba laga arag. Maxay ahayd kooxdani? Yan muxuu uga yimid dalkiisa? Muxuuse ka soo doonay Mareykanka? Laamaha ee Mareykanku ma ku guuleysan doonaan soo afjaridda kooxdan? Su'aalahan iyo kuwa kaleba jawaabahooda waxaad ka helaysaa muuqaalkeena maanta. Inta aynan bilaabin muuqaalkeena, saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin dhiirigelintiina. Fariimihiina quruxda badanna waxay noo yihiin dhiirigelin. Mahadsanidin. magaalada New York waa mid kamid ah magaalooyinka dunida ugu waaweyn. Waxa loo aqoonsan yahay inay tahay magaalada ugu hantida badan adduunka. Xaafad walbana waxa degan dad milyaneer ah ama bilyaneer ah. Dadka hantiilayaasha ah waxa lagu yaqaanaa inay iibsadaan baabuurta ugu qaalisan adduunka. Baabuurtan waxa loo yaqaanaa sports cars. Xawaarahoodu ugu yaraan waxa uu goyn karaa 300 kilomitir saacadii. Sanadkii 1990 waxa dhacay falal xiriir ah oo lagu xaday baabuurta qaaliga ah ee magaalada New York. Muddo ka yar bil iyo badh waxa la xaday in ka badan 48 gaari oo nooca raaxada. Howlgalladani si dhaqso ah ay u dhacayeen, mana ahayn kuwa cunfi iyo dhibaato wata oo dadkii lahaa baabuurta dhibaato kale ma soo gaarin. Tuugaduna xirfadooda iyo qalabka ay wataan ayay ku jabsan jireen gaari yaala meel baakin ah. Sidaas ayayna ku kaxaysan jireen gaarigaas oo muuqiisa la waayi jiray. Dhacani kuma koobnayn meelo gaar ah ee waxa uu ahaa mid ku baahsan qaybaha kala duwan ee magaalada. Waxaana laga yaabaa in gaariga laga xado mall, hotel, supermarket, theater, garoon ama xataa jaamacad. Kooxda aan ka hadlayno maanta baabuurta ay xadaan astaanta koowaad ee ka dhaxaysa waa inay yihiin nooca raaxada ah ee qaaliga ah. Astaanta labaad ee ka dhaxaysa waa in aan dib loo arkin mid kamid ah. Inta badan kooxaha kale baabuurta ay xadaan waxaa la heli jiray kofarka ama qolofka sare oo ay kala bixeen qaybihii muhiimka ahaa. Qalabka qaaliga ah ee ay ka furtaanna waxaa laga heli jiray meelaha lagu iibiyo qalabka baabuurta ee celiska ah ama spare parts-ka. Laakiin kooxdan baabuurta ay xadaan qaybo kamid ah xitaa lama heli jirin. Waxaana jiray shaki ah inay ka dhoofiyaan dalka oo ay dibadda u diraan. Dekada kaliya ee laga dhoofin kara baabuur badanna waxay ahayd Portland oo ku taalla isla magaalada New York. Tiim baarayaal ah ayaa loo diray dekada si ay u kuur galaan waxyaabaha laga dhoofiyo. Muddo dheer oo baaritaan ah kadib ma aysan helin wax raad ah oo ay raacaan. Waxayna dareemeen in ay game la dheerayaan koox weyn oo qorshe iyo qalin ku kala socota ama ku tiirsan maafiyada caalamiga ah. Runtuna waxay ahayd in dhammaan howlgalladaas lagu dhacay baabuurta uu ka dambeeyay hal qof oo aan ka tiirsanayn maafiyada, weligiisna aan soo marin kooxaha geysta dhaca ama dilalka qorshaysan. Shaqsigaasi ma ahayn muwaadin u dhashay USA, wuxuuna ka soo jeeday dalka China. Magaciisana waxa loo yaqaanaa Min Changyan. Xirfadiisa sare waxa sabab u ah kamid ahaanshaha laamaha sirdoonka ee China. Intii uu ku guda jiray shaqadan waxa uu xaday kumanaan gaari oo nooca raaxada ah, wuxuuna ka sameeyay dhaqaale lagu qiyaasay $40 milyan. 30 sano ka hor ayay ahayd. Haddii aan xisaabino qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka maanta waxay u dhigantaa $75 milyan. taariikhdii hore ee Min Changyan waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan laamaha sirdoonka ee China. Shaqada waxa laga fadhiisiyay sanadkii 1990 wuxuuna u soo guuray magaalada Shanghai oo kamid ah xarumaha dhaqaale ee dunida oo dhan ugu waaweyn. Magaaladan waxa ku nool maalqabeeno badan, waxaana ka jirtay baahi weyn oo loo qabo baabuurta qaaliga ah ee raaxada. Yan halkaas waxa uga muuqatay fursad dahabi ah oo uu dhaqaale ku samayn karo. Shirkad soo saarta baabuurta qaaliga ah waqtigaas xafiis kuma lahayn dalka China, maadaama dhaqaalahoodu uu ahaa mid hooseeya. Dalabaad macquul ah shirkadani kama aysan heli jirin. Min Changyan waxa uu xiriir la sameeyay kooxaha burcada ee Shanghai, wuxuuna u soo bandhigay heshiis ganacsi. Wuxuuna u sheegay inuu yahay sarkaal sare oo ka tirsanaan jiray laamaha sirdoonka, uuna khibrad u leeyahay arrimaha dhaca iyo tahriibinta. Sidoo kalena uu fikrad fiican ka haysto hababka ay ciidamadu dabagalka iyo baaritaanka u sameeyaan. Waxaan awood u leeyahay inaan dibadda idinka keeno baabuur qaali ah si aad ugu iibisaan dalka China. Fikradani si weyn ayay u soo jiidatay hogaamiyaha kooxda, maadaama ay baabuurta noocan ah qaali ka ahaayeen dalka Shiinaha. Tusaale ahaan, gaariga raaxada ee Ameerika ka jooga $100,000, China waxa lagu kala siisanayaa $200,000. waa qiimo laba jibaar ah. Ka waran haddii aadan gaarigaba lacag ka soo bixin oo aad soo dhacday. Hogaamiyaha kooxdani waxa uu aqbalay heshiiska Min Changyan, waxayna ku ballabeen in lacagta soo xarato ay u kala qaybsadaan 40% oo uu Yan qaadanayo iyo 60% oo ay kooxdu qaybsanayso. Sidoo kale hogaamiyaha kooxda waxa laga rabaa inuu maalgeliyo howlgalka. Sidaa darteed waxa uu Min Changyan gacanta ka saaray $500,000 ama $500,000 si uu ugu bilaabo howlgalka.
bilowga qorshaha. Min Jianyan waxa uu ogaa in New York ay tahay magaalada kaliya uu ka heli karo nooc walba oo looga baahdo gawaarida raaxada. Inta uusan bilaabin safarkiisa waxa uu adeegsaday khibradihii uu ka bartay shaqadiisa, waxa uuna samaystay passport fake ah oo uu ku qoran yahay magaca Kenny, wuxuuna sheegtay inuu yahay qaxootin doonaya inuu noloshiisa wax ka bedelo. hadafkiisa koowaad waxa uu ahaa inuu bulshada dhex galo oo uu fahmo dhaqankeeda. waxa uu gatay gaari duug ah oo noociisu yahay Nissan, waxa uuna bilaabay inuu ku socdo jidadka mashquulka ah uuna fadhiisto goobaha bulshadu isugu timaado. waxa uu watay nin lagu magacaabo Bao Chow oo ahaa gacantiisa midig. shaqada koowaad ee hortooda taalay waxay ahayd inay helaan guri u noqdo geerish ay baabuurta kaga shaqeeyaan kuna kaydiyaan inta aan la dhoofin. Yan waxa uu watay tilmaamo ay qasab tahay in laga helo dhismaha ay kiraysan doonaan. marka koowaad waa inuu ka fog yahay oo aysan u dhoweyn xarun boolis, sidoo kalena uu ku yaal xaafad xasiloon oo inta badan aysan dhibaatadu ka dhicin, xaafad aan laga shaki karin oo aan tugada laga aqoon. asbuucyo baaritaana kadib Yan iyo saaxiibkiis Chow waxa ay heleen dhismo ku habboon shaqada oo leh tilmaamaha aan soo sheegnay. waxay aasaaseen shirkad kofar ama dahqaryo u noqotay shaqadooda. muhiimadda shirkadani waa inaan guriga cidda degta iyo howlaha ka socda midna aan laga shakiyin. haddii arrimuhu ay xumaadaanna Yan magaciisa aan la isticmaalin oo uu nadiif ka ahaado qaladaadka oo dhan. shaqada labaad ee hortaalayaan waxay ahayd inuu sameeyo tiim la wada shaqooyinka oo ka howlgala dhismaha uu kireeyey, wuxuuna urursaday shaqaale kasoo jeeda waddankiisa oo uu isku hadlayn karo. waxayna bilaabeen inay diyaariyaan dhismaha. qaybta hore waxay ku ururiyeen sanduuqyo iyo jawaano ay ku jiraan raashinka noocyadiisa kala duwan, waxayna ugu talagaleen inaan laga shakiyin oo qofkii arkaa uu moodo inay cunto ku iibinayaan dhismaha. raashinka ay keeneenna waxa uu u badnaa noocyada aan hore u xumaan ee muddada dheer saarnaan kara marfashka. intaas kadibna waxay xarunta ku xireen kamirooyin ay kula socon karaan dhaqdhaqaaqa agagaarkooda ka socda. waddo walba oo dhismahooda soo gasha isha ayay ku hayaan. sidaasna waxaa ku dhammaaday 3dii shaqo ee ugu horreeyey oo ahaa diyaarinta dhismaha, qaadashada shaqaalaha iyo xirista kaamirooyinka. dhaqaajinta howlgalka. Min Jianyan wax khibrad ah uma lahayn dhaca baabuurta, diyaarna uma ahayn inuu gacmaha toos ula galo shaqada. qorshihiisuna waxa uu ahaa inuu soo helo isla markaasna howlgeliyo qof khabiir ku ah dhaca baabuurta. wuxuu bilaabay inuu waqti ku qaato macradyada lagu iibiyo baabuurta, geerashada lagu xareeyo isbeer baartiska iyo goobaha lagu xaraasho baabuurta shilka gasha. kadib muddo baaritaana uu waday waxa uu soo helo qofkii u baahnaa. magaciisuna waa Dean, wuxuuna ahaa xirfadle khibrad dheer u leh dhaca baabuurta. waxay isku barteen goob xaraasha oo lagu iibinayay gaari shil soo galay. baabuurtanna waxa gata dad isbeer ahaan u isticmaalaya ama qalabka qaaliga ee ku jira sii iibinaya. Min Jianyan waxa uu sheegay Dean inuu shaqo u hayo. sida aynu soo sheegnay, Yan qorshihiisu waxa uu ahaa inuusan faraha la gelin howlaha dhaca uuna ka fogaado intii tamartiisa ah. Dean waxa uu kula heshiiyey inuu soo dhaco baabuurta ama shaqo siiyo cid uga sii hoosaysa oo soo dhacda. gaari walba oo ay keenaanna inuu lacagtiisa siin doono. heshiiskaas kadib Dean wuxuu howlgeliyey nin ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Mario Lopez oo ahaa xirfadle ka khibrad badan isla markaasna uu ku qabay kalsooni badan. wuxuuna u sheegay inuu heshiis la galay ninka gadanaya gaari walba oo ay soo dhacaan. sida la og yahay, tuugada kuma adka inay baabuur xadaan, laakiin caqabada ugu weyn ee qabsataa waa meesha ay geynayaan gaariga ay soo dhacaan. Yanna waxa uu uga dhignaa nasiibkii cimriga, shaqsi diyaar u ah inuu kala wareego gaari walba oo ay soo dhacaan. dabcan waa inuu yahay nooca loo baahan yahay. Mario oo ahaa shaqsiga Dean uga hooseeya shaqada waxa uu shaqayn jiray hab isaga u gaar ah. ugu horeyn kombiyuutarka gaariga ayuu hagarayn jiray. intaas kadibna waxa uu kaxayn jiray gaariga gacanyaro uu wato oo geynaya meel indhaha ka fog. shabakada kooxdu waxay gaartay 5 qaybood. qofka koowaad waa Yan oo ah maskaxda ka dambaysa howlgalka. waxa ku xiga Dean, waxaana kasii hooseeya saaxiibkiis Mario oo isna maamula gacanyarayaal gaar u ah oo la shaqeeya. qaybta ugu dambaysana waa shaqaalaha dhismaha uu ku diyaariyaan. howlgalkaas waxaa kaaga muuqata in Min Jianyan uu si weyn uga fogaaday fagaaraha howlgallada oo ayna ka hooseeyaan 4 qaybood oo kala duwan. dhibaatada jirta dadka kula jira shabakada in yar oo ka mid ah ayaa wejigiisa aragtay. magaciisa saxda ah cid taqaana ma jirto, waxayna ugu yeeraan Kenny. arrintani sahal kuma imaan, wuxuu ka faa'iidaystay khibradiisa shaqo. sidaasna waxaa ku bilowday shaqadii dhaca baabuurta ee shabakada loo aasaasay. Yan waxa uu wacay Dean wuxuuna faray in shaqada la bilaabo. Dean isaguna waxa uu sii wacay Mario wuxuuna u sheegay in shaqada la bilaabo. Mario isna waxa uu howlgeliyay kooxii ugu hooseeyay shaqada. beegsigoodu waa xaafadaha ay ku
badan yihiin dadka hantiilayaasha ah ama goobaha ay isugu yimaadaan. shaqada furaheedu wuxuu ahaa Mario, tuug xirfad badan oo dhici kara gaariga uu rabo marka uu doono. shaqaalaha ka hooseeya ayaa soo heli jiray nooca gaariga ee loo baahan yahay, waxayna wargelin jireen Mario oo si dhaqso ah goobta ku imaan jiray. Mario waxa uu iska ilaalin jiray inuu jabiyo daaqadaha gaariga si uusan u dubin kombiyuutarku, wuxuuna jabin jiray muraayadaha. halkaas ayuuna ka geli jiray gaariga. wuxuu wataa laptop uu ku xiriiriyo systemka gaariga. waqti aad u yar ayuuna kula wareegi jiray kontaroolka gaariga nooc kasta uu yahay. waxa ugu muhiimsan waa inuu ka gooyo jiibka lagu istaaro uuna aqbalsiiyo in lagu daari karo furo caadi ah oo aan systemka ku jirin. shaqadaas oo dhan waqti aan ka badnayn 1 daqiiqo ayuu qaban jiray. marka uu xanimo security systemka gaariga una ku istaaro furo caadi ah, wuxuu ku wareejin jiray mid kamid ah shaqaalaha ka hooseeya oo u kaxayn jiray mid kamid xaafadaha ay degan yihiin dadka hantiilayaasha ah, wuxuuna ku dhex dari jiray baabuurta taalo baakinada guud. ujeedka ay halkaas gaariga u geeyeen waa in ay hubiyaan in gaariga meel qarsoon lagaga xiray aaladda GPS-ka ee lagu ogaado meesha uu yaallo ama marayo. marka la baakimo gaariga waxay marin jireen iskaan sheegaya haddii uu ku xiran yahay GPS. haddii uu markaas ka helo GPS, si degdeg ah ayuu uga furayaa gaariga, wuuna deminayaa, isla markaasna qashinka ayuu ku darayaa. si loo muujiyo taxadar dheeraad ah, gaariga waxaa loo doonayaa goobta 48 saacadood. haddii uu meeshiisa yaallo oo aan loo imaan, waxay ka dhigan tahay inaan lagu hayn dabagal, ugu yaraanna aan la ogeyn meesha uu jiro gaarigu. markaas ayaa la soo kaxayn jiray gaariga iyadoo la hubo inuusan ku raad joogin boolisku. qorshahaas iyo maskaxdaas waxaa dejiyey Yan, waana qayb ka mid ah khibradii uu ka soo helay shaqadiisa sirdoonka. Yan wuxuu u sheegay Dean in shaqaalihiisa la faro in gaariga ka soo gudbo imtixaanka dabagalka la dhigo meel ka fog dhismaha u kiraysan kooxda. ujeedkuna waa in xubnaha la shaqeeya Mario aysan ogaan meesha la geeyo baabuurta. Dean ayaa gaariga ka soo dhaqaajinaya meesha la dhigay, laakiin weli waxa uu dhiman hal imtixaan oo uu Yan ugu talagalay inuu ku ogaado haddii gaariga lagu daba jiro. imtixaankuna wuxuu ahaa in 3 mar lagu soo wareejiyo dhismaha. ujeedkuna waa in la hubiyo haddii ay jirto cid dabagal ku haysa gaariga ay soo dhaceen. hubintu waxay ka koobnayd 2 qaybood. qaybta koowaad waxaa sameynaya shaqaalaha ku jira dhismaha oo kaamirooyinka kala socda cid walba oo isku dayda inay dabagal ku samayso gaariga. qaybta labaad waxaa mas'uul ka ah gaari caadi ah oo daba socda gaariga la soo dhacay. isna sidoo kale wuxuu hubinayaa in ay jirto cid isha ku haysa gaariga. kaliya gaariga ka gudba imtixaanadaas kala dambeeya ayaa la ogolaan jiray inuu galo dhismaha u kiraysan kooxda. taxadarka ka muuqda tallaabooyinka aan soo sheegnay waxaa laga fahmi karaa in qorshahaas uu dejiyo qof aan caadi ahayn. kaydinta iyo dhoofinta gaariga marka uu gudaha u galo dhismaha waxa gacanta ku dhigay team Chinese ah oo Yan kalsooni weyn ku qabo. shaqada kooxdani waa inay cilad bixiyaan oo ay qurxiyaan gaariga kana dhigaan mid warshad ka soo baxay oo kale. gebi ahaan systemka gaariga ayaa dib loo programinayaa, sidoo kale furayaal cusub ayaa loo samaynayaa. marka loo dhammeeyo dhammaan shaqooyinka muhiimka ah, gaarigu waxa uu diyaar u yahay in loo dhoofiyo China. tallaabada dhoofintu waxay ka bilaabataa isla dhismaha oo ay yaalaan konteenaro midkiiba lagu xarayn karo 3 gaari. marka la xareeyo baabuur waxaa la diyaarinayaa waraaqo been abuur ah oo tilmaamaya in konteenarada ay ku jiraan raashin loo dhoofinaya China. waxay ku dadaaleen inay sameeyaan 2 arrimood. arrinta koowaad, raashinka waraaqaha ku qoran in la waafajiyo miisaanka saxda ah ee baabuurta ku jira konteenarada. qodobka labaad, in qaybta soo xigta albaabka konteenarka laga buuxiyo raashin si looga badbaado khatarta ka dhalan karta haddii la furo konteenarka. markan waxaa la soo gaaray in la raro konteenarka. adiga oo fiirinaya qaybta hore ee qisada iyo maskaxda Yan, ma filaysaa in konteenaradu ay dekada toos u aadaan mise waxaa jira tallaabooyin dheeraad ah oo ka turjumaya taxadarka Mr. Yan? sida aad qiyaastay jawaabtu waa maya. Yan waxa uu fahamsan yahay in laamaha ammaanku ay baaritaan ku sameynayaan dekada ayna baarayaan maraakiibta iyo konteenarada. sidaa darteed waxa uu qorsheeyay in konteenarada laga dhoofiyo dekada ugu fog si ay uga badbaadaan booliska New York. ugu horeyn, konteenarada waxaa loo qaadi jiray stateka New Jersey oo dhinaca koonfur xuduud kala leh New York, waxaana lagu wareejin jiray tareen u baxay stateka California oo dhaca galbeedka ugu fog USA. tareenkani waxa uu kala gooshaa bariga iyo galbeedka qaaradda North America. daawade balqiya tareen ka baxa mid ka mid ah wadamada bariga Afrika sida Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo u safra galbeedka fog ee qaaradda wadamada Senegal iyo Mauritania. Yan intaas oo dhan uma sameyn kaliya inuu ka badbaado booliska ee waxa jirtay ujeedo kale oo meesha ku jirta, taas oo ah inuu konteenarada ka dhoofiyo dekada ugu dhow Shiinaha. waxaa la oran karaa 2 shimbirood ayuu hal dhagax ku dilay. intaas oo kaliya ma aha ee waxaa jirta hal tallaabo oo taxadar ahaan uu Yan u sameeyay. Yan waxa uu ku dadaalay inuu konteenarada ku raro markaba aan u socon Shiinaha, balse
socda mid ka mid a waddamada dariska ah mid ka mid a dekadaha ay sii marayso ayaa lagaga dejinayaa konteenarada waxaana lagu wareejinayaa markab kale oo u socda Shiinaha. markabkan waxa uu haystaa waraaqaha saxda ah ee sheegaya alaabta ku jirta konteenarka. qorshahaas uu dejiyayaan ayuu ku maamulayay kooxda sanado badan. 5 sano ee ugu horeysay waxay dhaceen kumanaan gaari oo nooca raaxada ah. booliskana waxay ku rideen xaalad jaahwareer ah. Yaan inkasta uu yahay maskaxda ka dambaysa dhaca kumanaan gaari haddana aad ayuu uga fogaaday fagaaraha howlgalka oo shaqada waxaa kala wada xubno aan is aqoon laakiin mid walba uu shaqadiisa yaqaano. haddaba waxaa cajiiba in dalabka ama baahida ay China isku qabaan baabuurta qaaliga ah inay sii badatay oo Yaan iyo kooxdiisa waxaa laga codsaday inay kordhiyaan tirada baabuurta ay soo dhoofinayaan si ay baahidaas uga jawaabaan. Yaan iyo kooxdiisu waxay bilaabeen inay beegsadaan meelo cusub. shirkadaha iibiya baabuurta ayay taarget ka dhigteen. goobahan waxaa ka jirta fursad dahabi ah oo aan laga heli karin meel kale sababtoo ah waxaa la heli karaa 10 gaari oo cusub kuwaas oo aan u baahnayn hagaajin ama dayactir sidii caadadu ahayd. Yaan waxa uu amar siiyay Dean iyo saaxiibkiis Mariyana waxa uu aaday mid ka mid ah shirkadaha ka ganacsada baabuurta isagoo iska dhigaya macmiil u baahan in gaari laga iibiyo. waxa uuna arkayay meesha la dhigo furayaasha baabuurta waa sanduuq ku dhagsan gidaar ku yaala qolka maamulaha. Mariyana waxa uu muujiyay inuusan helin gaarigii uu doonayay waxa uuna u mahadnaqay maamulaha sidaas ayuuna kaga baxay shirkadda. dhowr maalmood kadib waxa uu soo aaday dhinaca shirkadda xilli habeen ah oo shaqada laga rawaxay. qolka maamulaha ayuu u dhacay wuxuuna jabiyay sanduuqii furayaasha oo uu kala baxay dhammaan furayaashii ku jiray kuwaas oo dabcan ahaa baabuurta qaaliga ah ee raaxada. waxaa la socday 7 ka mid ah asxaabtiisa kuwaas oo ku sugayay bannaanka. baaq ayuu u diray waxayna soo galeen gudaha. 7 gaari ayayna ka haysteen. ugu dambayn isaga ayaa gaariga 8aad la baxay. howlgalkaas oo dhan waxa uu ku dhacay 3 daqiiqo oo keli ah. inkasta oo uu dhawaaqay alarmiga systemka shirkaddu ayna digniintu gaadhay booliska laakiin inta ay soo socdeen ayay goobta isaga tageen Mariya iyo tiimkiisu. fashil lama filaan ah. muddadii ay sii socdeen jidka waxaa dhacday dhibaato aan xisaabta ku jirin oo xagga kale u rogtay howlgalkii u muuqday mid guulaystay. mid ka mid ah baabuurtii la soo dhacay ayaa shil galay kadib waxaa soo gaaray ciidankii wadooyinka oo shaqada ka bilaabay hubinta aqoonsiga gaariga shilka galay iyo darawalka wadaba. waxay ogaadeen in gaariga la soo dhacay fariintiisuna ay soo gaartay booliska. nasiib wanaag darawalka dhaawac fudud ayaa soo gaaray oo dhib weyn ma qabo. gacmaha ayay jeebba kaga xidheen waxayna u kaxeeyeen saldhigga. ninkan isma dhibin ee su'aalihii la weydiiyey oo dhan toos ayuu uga jawaabay wuxuuna fashiliyay asxaabtii howlgalka kula jirtay oo dhan. tuugada hoose marka laga yimaado madaxda sare kaliya waxa uu garanayay Mariya iyo Dean wuxuuna u sheegay in Dean uu yahay madaxa ugu sarreeya ee soo abaabulay howlgalka. sidaa darteed waxay dabagal ku sameeyeen Dean oo cabaar kadib aaday dhismihii lagu hagaajin jiray gaadiidka China loo dhoofinayo si uusan uga shakin meel fog ayay kala socdeen dhaqdhaqaaqa uu samaynayo laakiin waxaysan ogeyn in dhismaha si weyn loo ilaaliyo oo lagala socdo kamerooyinka ku dhagsan wadooyinka ku dhow dhismaha. sirdoonka dabagalka ku haya Dean ma oga in naftooda uu dabagal ku hayo Yaan oo ah sirdoon hore ula shaqayn jiray laamaha ammaanka ee Chinaha. inkasta oo qof walba uu walwal muujin lahaa marka dhismihiisa ciidan la hor keeno haddana Yaan waxa uu ahaa shakhsi diyaar u ah xaalad noocan oo kale ah. baarayaashu ma hayaan caddayn tilmaamaysa in gurigani yahay xarunta tuugada. sidaa darteed waxaa laga rabaa inay kor joogtayaan dhismaha waxa gelaya iyo wax ka soo baxaya. Yaan arrintaas uu fahansanaa isaga ayaana sirdoon hore ahaa. sidaa darteed wax gaadiid ah uma soo dirin xarunta. qalabka yaala dhismaha Yaan wuxuu u diyaariyey hab fududaynaya in si qarsoodi ah loo raro. sidaad qiyaasi karto dhismaha waxa yaala dhowr gaari iyo qalabka lagu dayactiro baabuurta. Yaan waxa uu soo diray baabuurta xamuulka qaada oo dhismaha gudaha u gashay waxaana lagu raray qalabkii iyo baabuurtii. qaybta dambe ee baabuurta waxaa la saaray raashin iyo cunto loogu talagalay in lagu qariyo maadaama dhismuhu u jiraysan yahay shirkad ka ganacsata raashinka ama cuntada lagama shakayin. sidaas ayayna baabuurtii ku gudbeen baarayaasha oo u jeeda. waxay sugayeen caddayn laakiin ma aysan dareemin in caddayntii hortooda la mariyey. Soomaalidu waxay ku maahmaadaa nin geed geli jiray geed looma galo. Yaan dhismaha waxa uu ka dhameeyay cadaymihii muhiimka ahaa. baarayaashuna waxay baraarugeen maalintii labaad oo ay waayeen shaqaalihii furi jiray shirkadda been abuurka ee dhismaha degan. sidaa darteed waxay go'aan ku gaareen inay gudaha u galaan. guri cidla ah oo laga guuray ayay galeen waxayna ogaadeen in 2 tallaabo laga horreeyay. hakinta howlgalka baarayaashu muddadii ay wadeen baarista marna ma aysan arkin wejiga Yaan. sidaas awgeed ma aqoonsan karaan wejigiisa magaciisa iyo meesha uu ka soo jeedo midnaba. waxayna qorsheeyeen inay soo qabtaan qofka ay garanayaan oo ah Dean laakiin waa ay ka baaqsadeen waxayna go'aansadeen inay kor kala socdaan dhaqdhaqaaqiisa iyo cidda uu la kulmayo. sababta ku kaliftay inay dusha kala socdaan ninkan waa 2 arrimood. arrinta koowaad waa inay soo qabtaan xubnaha maqan ee kooxda. arrinta labaadna in la ogaado meesha ay geeyaan baabuurta ay dhacaan.
yaan isagu gebi ahaanba waxa uu iskaga baxay Maraykanka wuxuuna u safray China si uu nasasho uga qaato shaqada isla markaasna uga badbaado qabashada intay xaaladdu kacsan tahay. dhanka kale baarayaashu waxay maxkamad ogolaansho uga qaateen inay dhageystaan taleefanada. Deanna waxaa jiray qof soo waca mar walba oo weydiiyo su'aalo isku mid ah. baarayaashu ma ka hareen weli miyay ku daba socdaan iyo su'aalo la mid ah. Dean isaga jawaabtiisu mar walba waxay ahayd inuusan waxba ka ogeyn in ay weli dabagal ku hayaan iyo in kale. su'aalahan baarayaashu waxay ka fahmeen in Dean kaliya uu yahay gacan yare ama shaqaale ayna jiraan madax sare oo kooxda hogaaminaya. soo laabashadii yaan 6 bilood oo dabagal iyo korjoogto lagu hayay Dean ayaa soo dhammaatay. markan waxaa soo wacay qof u muuqda inuu muhiim yahay magaciisuna waa Kenny. dabcan waad la socotaa in Kenny uu yahay magaca been abuurka ee yaan. Kenny waxa uu Dean u sheegay inuu soo laabtay uuna hayo dalab gaaraya 260. runtii ma sheegin 260ka waxa laga wado wuxuuna u hadlay si guud oo aan waxba laga fahmayn. wuxuuna u muuqday nin dareensan in taleefanka Dean laga dhageysan karo. wada hadallada u dhaxeeya Kenny iyo Dean baarayaashu waxay ka fahmeen in Kenny uu yahay hogaamiyaha kooxda uuna qorsheynayo dib u bilaabista hawlgaladii dhaca. dhanka kale Kenny waxa uu qabay cabsi xoogan oo la xiriirta in taleefanada gacanta laga dhageysan karo. wuxuuna adeegsaday 2 nooc oo ka mid ah xaaladaha looga baxsado dabagalka noocan ah. arrinta koowaad ayaa wada hadallada dhex maraya isaga iyo Dean. wuxuu adeegsanayay hadallo aan qeexnayn oo aan la fahmi karin ujeedkooda rasmiga ah iyo waxa looga jeedo. sidoo kale arrinta labaad ayaa ahayd nambar kasta waxa uu adeegsan jiray hal mar oo kaliya wuuna iska tuuri jiray marka uu hadlo si aan loo dhageysan dadka kale ee uu la hadlo amaba aan loogu soo qaban GPS-ka. tallaabooyinkani waxay jahwareer ku rideen baarayaasha gacanta ku hay kiiska dhaca sababtoo ah waxay u baahnaayeen inay helaan ogolaansho maxkamadeed si ay dhageysi ugu sameeyaan nambar kasta. dhibaatada kale ee jirta waxay ahayd marka ay bedelaan taleefanada xiriirka sidee ayay ku ogaan karaan nambarada cusub ee ay qaateen. sirtu waxay ku dugnayd inay haystaan ogolaansho ay ku dhageysan karaan xaaska Dean oo ahayd qofka kaliya oo uu si joogta ula soo xiriiro. inkasta oo ay mar walba si fudud u soo heli karaan nambarka cusub ee Dean haddana waxay caqabad kala kulmeen dhageysiga xiriirada kale ee Kenny. marka kaliya ee ay maqlaan codkiisa waa marka uu soo waco nambarka ay ka dhageysanayaan Dean. marka laga yimaado taxadarka xad-dhaafka ee Kenny xubnaha kale ee ku xiran Dean ma aysan ahayn kuwo feejigan oo is ilaaliya. sidaa darteed dhammaan xubnaha kooxdu waxay ahaayeen kuwo si dhow loola socdo marka laga reebo Kenny. howlgalkani inkasta uu dhibaato iyo culays badan lahaa gaar ahaan marka hal qof ama ka badan ay bedelaan nambarada lagala xiriiro haddana baarayaashu waxay ku qanacsanaayeen inay ku raad joogaan koox khatar ah ayna xaqiijin rabaan guul taariikhi ah. inta aynu soo bilownay sheekada yaan ama Kenny mar walba isaga ayaa tallaabo ka horeeya baarayaasha laakiin markan 2 tallaabo ayaa laga horeeya isaga. saaxiibadiisa Chinese-ka ah ma aysan lahayn taxadar la mid ah kiisa si gaar ah saaxiibkiis Bao Chow oo ahaa gacantiisa midig. ninkani marar badan taleefanka waxa uu ka samayn jiray ballamo la xiriira meesha ay ku kulmayaan ama ay ka cashayn doonaan. baarayaashu arrintan si weyn ay uga faa'iideysteen xogaha ay ka helayaan Chow waxaana jirtay maqaayad samaysa cuntada Chinese-ka oo ay si joogta u kulmi jireen Chow iyo Yan waxayna ka howlgeliyeen maqaayadda xubin Chinese oo shaqada laga rabo ay tahay inuu keeno sawirka Yan inuu soo dhageysto xogta kulanka uu leeyahay Chow. ugu dambeyn baarayaashu markii ugu horeysay ay arkeen wejiga ninka weerariyay sanadihii la soo dhaafay. sidoo kale waxa la soo gaarsiiyay xog la xiriirta dhismo cusub oo ay kiraysan rabta kooxdu waxayna ogaadeen meesha uu ku yaalo. baarayaashu markan waxay u muuqdaan kuwa cashar ka bartay fashilkii ay kala kulmeen kormeerkii dhismihii hore waxayna baaritoonkoodii u sameeyeen hab ka horumarsan midkii hore waxayna joojiyeen gebi ahaanba inay baabuur ama rag u diraan dhismaha kormeerka lagu hayo. kamirooyin ayayna ku xirteen dhismayaasha ka agdhow dhismaha ay kiraysteen Yan iyo asxaabtiisu si weyn ayayna ula socdaan dhaqdhaqaaqa inta badan xubnaha kooxda. sidoo kale waxay dhageysan karaan taleefanada gacanta oo ay ka ogaadeen gaari nooca xamuulka oo u soo socda dhismaha kaas oo la saari doono badeecad. checkpoint ayay u dhigteen waxayna si qarsoodi ah konteenarada mid ka mid ah ugu xireen aalad GPS ah oo lagala socon karo meel walba oo la geeyo konteenarka. konteenarkan ayaa ka caawiyey inay ogaadaan dekada laga dhoofiyo baabuurta la dhaco wadada la sii mariyo iyo habka loo qariyaba. Yan wax wara kama hayo kormeerka lagu hayo shaqadiisa ayuuna iska wataa wuxuuna hirgeliyey hab cusub oo baabuurta loo dhaco. tusaale ahaan waxaa jiray baakin lacag lagu kireeyo oo baabuurta la dhigo. inta badan goobahan baabuurta la dhigo waxay leedahay waardiye gaar ah oo sugo amniga gaadiidka. furayaasha ayaa laga reebaa darawalka marka uu baxayana waxaa laga qaadaa lacag u dhiganta muddadii uu adeegsanayay baakinka. Mario Lopez wuxuu heshiis la galay mid ka mid ah ragga ilaaliya
goobaha la dhigto gaadiidka. wuxuuna u ballan qaaday inuu $500 ka dhiibayo gaari walba oo loo fududeeyo inay dhacaan. waxay la ballameen waqti habeen inay soo weerari doonaan goobta. markay u yimaadeenna furayaasha ayay ka qaateen, kadib gacmaha iyo lugaha ayay ka xireen si ay ugu ekeysiyaan in lasoo weeraray oo la dhacay. baabuurtii ay rabeen ayay ka haysteen, askarigiina waxay kaga tageen isagoo xidhxidhan. muddo kadibna macmiil doonaya inuu gaarigiisa qaato ayaa soo gaaray goobta. wuxuuna arkay xaaladda askariga iyo dhibaatada meesha ka dhacday. isla markiiba wuxuu wargeliyey booliska, laakiin tuugadu waqti hore ayay baxeen, wayna adag tahay in laga gaaro. qaladkii ugu dambeeyey waxaan isla ogeyn yaan inuu kooxdiisa u dejiyey xeerar ay kaga taxadaraan in lasoo dabagalo ama la ogaado dhismaha ay baabuurta geeyaan. bilowga gaariga waxaa la geyn jiray mid ka mid a xaafadaha ay ku nool yihiin taajiriinta, waxaana la hubin jiray inuu ku xiran yahay GPS-ka. halkaas waxaa loo deyn jiray 48 saacadood si loo hubiyo inaysan jirin cid soo raadisa gaariga. shaqo walba markay cusub tahay waxaa lagu bilaabaa dadaal iyo taxadar. marka ay muddo socoto wax walba caadi ayay noqdaan, waxaana la iska dhaafaa dadaal kasta iyo taxadar kasta oo la samayn jiray. maariya iyo raggiisu dhammaan baabuurtii ay soo dhaceen waxay toos u geeyeen dhismihii lagu xarayn jiray gaadiidka. nasiib darro, baabuurtaas mid ka mid a waxaa ku xirnaa GPS. mulkiilaha gaarigu waxa uu warbixin gaarsiiyey xarunta boolis ee ugu dhow. mid ka mid a askarta ka hawlgasha saldhigga ayaa loo xilsaaray dabagalka gaariga iyo soo qabashada cidda dhacday. tilmaanta uu bixiyey GPS-ka ayuu soo raacay, wuxuuna soo gaaray dhismaha lagu xareeyey gaariga. askarigani waxba kama oga dhismaha cidda degan, shaqada ay wadaan iyo dabagalka lagu hayo intaba. sidaa darteed si caadi ayuu gaarigiisa uga soo degtay, wuxuuna garaacay albaabka. dhanka kale, baarayaashu wadnaha ayay farta ku hayaan, waxayna cabsi weyn ka qabaan in askarigani qarribo qorshaha ay soo wadeen muddada. tuugaduna ay mar labaad ka baxsato. runtii sidii ay filayeen ayay wax u dhaceen. dhammaan shaqaalihii ku jiray gudaha waxay bilaabeen inay kala yaacaan. baarayaashu ma aysan haysan fursad kale, waxayna u gurmadeen askariga si gacanta loogu dhigo shaqaalaha baxsan rabaa. waxaa xusid mudan in yaan oo magaciisa loo yaqaano Kenny uu ka maqnaa goobta, waxayna hubeen haddii loo sheegay in saaxiibadiis lasoo qabtay uu mar labaad gacantooda ka baxsan doono. baarayaashu hore ayay uga taxadareen baxsashada ninkan, waxayna daba dhigeen koox gaar ah oo dhaqdhaqaaqiisa la socota. kooxdan ayaana la siiyey amar ay ku soo qabtaan. gurigiisa ayuu joogay, halkaas ayayna ka soo qabteen. waraysiyadii lala yeeshay ayay ku ogaadeen in magaciisa dhabta uusan hayn Kenny oo lagu magacaabo Min Chiang Yan. sidoo kale waxay ogaadeen taariikhdiisa iyo inuu la soo shaqeeyey laamaha sirdoonka ee China. arrinta keliya ee aysan ogaan waa meeshii ay geyn jireen baabuurta ay dhacaan, sababtoo ah xubnaha kooxda waxay soo qabteen ka hor dhoofinta baabuurta ay soo dhaceen. yaan maxkamaddu kuma aysan helin dembi la xiriira dhaca baabuurta. looyaradiisuna waxay ku doodeen keliya inuu baabuurta ka iibsan jiray kooxaha soo dhaca, maadaama uusan gacmihiisa ku xadi jirin gawaadhida. kiiska yaan waxaa laga reebay eedaha la xiriira dhaca iyo tuugada, waxaana lagu bedelay inuu ku lug lahaa ganacsiyo sharci darro ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xadhig ah. runtii waa xukun aad uga hooseeya kumanaanka gaari ee uu dhacay iyo malaayiinta uu ka sameeyeyba. laguma guulaysan in dib loo soo celiyo baabuurtii uu dhacay, sababtoo ah wax warbixina lagama hayn cidda uu ka iibiyey iyo halka ay joogto. sidoo kale laguma guulaysan soo celinta lacagaha malaayiinta ah ee uu ka sameeyey dhaca.